maanta waxay soo wacay walaal aan coach u ahay walaalkan wuxuu ii sheegay arrin boqolkiiba boqol aan ku farxay adiga videoga fiirsanayo waxa laga yaabaa arrinta markaa maqashid inaad ku qosashid walaalkan maanta uu soo wacay markuu soo wacay gymka ku jiray teleefankaygana boorsada ayuu ku jiray gymka markaan ka soo baxay kadib teleefankayga ayaan fiiriyay waxaan arkay walaalkan oo 5 jeer soo wacay waxaan is dhahay walaalkan hadduu 5 jeer ku soo wacay arrin muhiim u rabaa inuu ku sheego isla markii waa wacay hore teleefanka uu ka qabtay wuxuu yiri arrin farxad leh ayaan rabaa maanta inaan ku sheego markaasuu wuxuu yiri 15 sano ka hor ayaa ugu dambeysay subaxdii inaan soo kaco anteenadayda oo kor u kacsan waa ogahay adiga videoga fiirsanayo waa ku qoslaysaa arrintan marka maqashid laakiin xaqiiqada waxay tahay arrintan rag badan ayay haysataa haddaba sababta videogan u suubinayo shactira darteed ma ahan videoga waxaan u suubinaa adiga videoga fiirsanayo khaladka walaalkan suubiyo kale inaadan suubin waxa kale videoga u suubinaa hadduu jiro walaal problemkan haysto kale videoga markuu fiirsado inuu wax ka barto oo wax ka faa'iido isla markaasna problemkiisa saas ku xaliyo marka videogan walaalkan kiiskiisa xabad ayaa u kor istaageena adiga videoga fiirsanayo waxa laga yaabaa videogan wax badan aadan ogeyn ina maanta ka ogaatid asxaabta soo dhawaada saaxiibkii Maryole Masal waaye minikini waaye adiga walaashay walaalkay hadda channelkan ku cusub tahay aniga magacayga waa Cabdinaasir waxaan suubiyaa fiidiyo ku saabsan jirriska iyo raashinka fiidiyoga inta ku dadgalin waxa si sharaf leh idinka codsanaa fiidiyoga like na saartaan comment ka soo bixisiin asxaabtiin u share gareysaan hadda wali subscribe hina fadlan subscribe leh mahadsanid okay marka hadda su'aasha isweydiiska mudan waxay tahay maxaa keenay walaalkan heerkan dhan testosteronigiisa inuu hoos ugu dhaco inta aan ka hadlin waxa keenay waxa fiican inaan wax ka ogaano walaalkan qaabka uu u nool yahay walaalkan taxi ayuu wadaa 17 sano u dambeysay taxi ayuu waday 50 sanana wuu jiraa shaqada taxiga ma aha shaqo 8 saacadood bas la qabanayo waa shaqo fadhi ah qofka taxiilaha ah soo helo mushahar normal ah wuxuu ku qasban yahay maalintii inuu shaqeeyo 8 saacadood ilaa 16 saacadood inta u dhaxayso waxay ku xiran tahay shirkadda qofka u shaqeeyo iyo meesha uu joogo shaqada taxiga ah waa shaqo mararka qaarkood habeenkii la shaqeynayo walaalkan wax jimicsi ah muusan suubin jirin ama waligiis wax jimicsi ah ma uusan suubin wuxuu rabo iska cuni jiray intuu rabo ku cuni jiray waxa soo dhan waxay keeneen walaalkan miisaankiisa inuu aad kor ugu kaco oo gaaro 116 kiilo walaalkan markuu ii imaanayay testosteronigiisa marka la soo cabiray wuxuu ahaa 5 nanomol per milliliter meel aad u hooseysa ayuu joogay waxaan ka hadlayaa waa total testosteroniga free testosteronigana warkiisa iska dhaaf cholesterolkiisa xun LDL-ka meel riski ah ayuu joogay dhiikara intaas u sii dheeraa waxa kale oo intaas u sii dheeraana jilba xanuun sababtay walaalkan jilbaha u xanuunayeen waxay ahayd qaarkiisa hore iyo qaarkiisa dambe waxa weynaa qaarkiisa hore maadaama walaalkan korka hore ama qaarka hore uu ka cayilan yahay lugahana caato uu ka yahay marka lugihiisa ama jilbihiisa culeyskaas maalintii dhan ay sidaan way xamili waayeen taasna waxay keentay walaalkan jilbaha inay xanuunaan marka sababta keentay walaalkan testosteronigiisa inuu hoos u dhaco waxay tahay da'da 50 sano ayuu jiraa fiiri ninka ragga ah markuu gaaro 30 sano sanadka ka dambeeya testosteronigiisa wax yar ayaa hoos u dhacayo marka daadan iska taxadirin waxa yar ee sanadka ka dambeeya hoos u dhacayo wax badan ayay noqonayaan laba waxa keenay walaalkan testosteronigiisa inuu aad hoos ugu dhaco waxay tahay miisaanka 116 kiilo waaye markastoo miisaankaaga kor u kaco ama fat percentage-kaaga kor u kaco testosteronigaaga hoos ayuu dhacayaa saddex waxa keenay walaalkan testosteronigiisa inuu aad hoos ugu dhaco waxay tahay raashinka wuxuu rabo cuni jiray intuu rabana wuu ka cuni jiray afar waxa keenay walaalkan testosteronigiisa aad hoos ugu dhaco waxay tahay wax jimicsi ah waligiis ma suubin ama wax jimicsi ah ma suubiyo shan waxa keenay testosteronigiisa walaalkan inuu aad hoos ugu dhaco waxay tahay dhafarka ninka ragga ah dhafarka cadow ayuu u yahay waa dareema mararka qaarkood danta kugu qasbeyso oo shaqadaada waxay tahay habeen inaad shaqeysid laakiin waxaan kuula talinaa weliga bilaa macna habeen inaadan u dhafrin ogow ninka ragga ah dhafarka cadow ayuu u yahay aniga iyo walaalkan wada shaqeynteena waxay bilaabatay 2 bilood iyo bar ka hor walaalka markuu iimaanayay waxa koobaad aan suubinay waxa uu ahaa waxaan saxnay
raashinka caloric deficit ayaan geliyay walaalka markuu iimaanayay waxa dib ku ahayd 15 daqiiqo inuu lugeeyo sababtoo labada jilib ayaa xanuunayay taas waxay keentay ama danta waxay nagu qasabtay walaalkana u diro meelaha lagu dabaasho suubiyaha dhaxdiisa ugu lugeeyo meelaha lagu dabaasho waxay leeyihiin baraakado loogu talagalay dadka inay ku dhex lugeeyaan koodii ama bilowgii waxaan suubinaynay wuxuu ahaa walaalkan 5 saacadood ayuu weegi biyaha dhaxdiisa ku dhex lugeynayay caloric deficitna wuu ahaa taasna waxay naga caawisay 10 kiilo walaalkan inuu iska rido marka walaalka markay ka dhacday 10 kiilo xoogaa culeyskii uu ka kala yaraaday markaas kadib waxaan tartiib ama si taxadir leh u bilownay socod 45 daqiiqo socod ayaan ka bilownay iyo training khafiif ah 45 daqiiqo socodka ah iyo trainingkaas khafiifka ah oo weegi aan suubinaynay 5 jeer waxay naga caawiyeen walaalkan inay ka dhacaan 6 kiilo hadda waqtiga la joogo walaalkan miisaankiisa 94 kiilo waaye 20 kiilo ayaa ka dhacday weegi wuxuu suubiyaa 4 saacadood oo cardio ah iyo 3 saacadood oo training ah ama bir qaadis ah marka shaqadii aan soo qabanay 2 bilood iyo barkii la soo dhaafay miisaankii aan ridnay hurdadii aan saxnay raashinkii aan saxnay trainingkii aan suubinay waxay keeneen walaalkan testosteronigiisa tartiib inuu dib ugu soo laabto waana keentay subaxdii anteenadiisa inay kor u kacdo marka adiga videoga fiirsanayo hadii kugu dambeysay waqti dheer anteenadaada inay kor u kacin subaxdii fadhi ma ku yaalo saaxiib hurdada ka kac waa ogahay adiga videoga fiirsanayo waxa isleedahay walaalkan problemkiisa waxa xalin lahaa xulba iyo saliid quba iyo waxaasoo dhan guriga ayay uga buuxeen waxna way u tari waayeen waxa kale wax u taray wuxuu ahaa shaqo inuu diyaar u noqdo inuu miisaan ka rido inuu training suubiyo inuu raashinka saxo iyo habeenkii inuu si fiican u seexdo iyo fitamiinada jirkiisa u baahan yihiin inuu qaato marka adiga videoga fiirsanayo hadaa rabtid natural ahaan testosteronigaaga ina kor u soo qaadid waana shaqo diyaar u soo noqotaa waa miisaanka ina ridaa waa ina raashinka saxdaa habeenkii si fiican u seexataa fitamiino jirka uu baahan yahay waa ina qaadataa waa ina jimicsi suubisaa jimicsiga iyo testosteroniga way isku xiran yihiin ama aqbal ama ha aqbalin marka adiga videoga fiirsanayo hadaa tahay qof subaxdii anteenadiisa kor u kaceenin saaxiib fadhi ma ku yaalo hurdada ka kac asxaabta videoga inta ka bixin waxaan rabaa inaan idin sheego hada coach u baahan tahay diyaaran ku ahay coach waan ku noqonaa ani markaan ku leeyahay coach aan ku noqonaa macnaheedu ma ahan barnaamijkan ku suubiyo oo ku soo diro oo meeshaas iskugu keenta beenayso processka dhan talaabo ayaan ku wala soconaa waa hada tahay qof hore u socdo marka hadaa rabtid aniga inaan coach ku noqdo diyaaran ku ahay waan ku soo dhaweynaa gacno furan ayaan ku soo dhaweynaa waxa igala soo xiriirtaa emailkan asxaabta daawashada videogan daawateen aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u ballanaa videogan ku xigo ballanteenu waa caafimaad iyo muruq